Halkani waa deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug waxaana ku sugnaa kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. Inta aysan ka bixin waxa ay burburiyeen guryaha dadka shacabka ah, sidoo kale waxa ay hore u sii wateen xaasaskooda iyo caruurtooda halkee la aadeen. Waxaa lagu arkay isla goobtaasi dhacdooyin argagax leh oo ay uga carareen kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. xogahaasi oo dhammaystiran ayaan daawaday halkan in kula wadaagayaa. Marka hore muuqaalka share gareeya oo meel fog gaarsiiya haddii ay tahay markii kugu horeyso oo soo booqato channelka Haldoor Media. waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartid, sidoo kale tana gambaleel ka furatid si mar walba aad u heshid xogihii ugu dambeeyay ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya. aan ku bilaabay halkani waa deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug oo muddo aad dhagaha ka maqasheen in kooxda khawaarijtu ay halkaasi ku dagaalamayaan, sidoo kale tana u ahayd fariisin xoogan oo ay ka hagayeen dagaalka gobolka Mudug. hase ahaatee geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka oo hoy iyo harsiimo u diiday kooxda arxanka daran ee caadeysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed waxaa ka saaray deegaanka Shabeelow cabsi iyo sidoo kale weerar joogto ah ay ku hayeen geesiyaasha dadka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. deegaanka Shabeelow markii gudaha loo galay waxaa laga dheehan karay deegaan burbursan, dadkiisuna ay ku jireen gacan cadow oo gumaysi xoogan ku haysa, sidoo kale tana deegaanku uusan horumar balaaran uusan sameyn maadaama koox khawaarij ah oo caadeysatay daadinta dhiigga islaamka ay gacanta ku hayeen deegaanka. markii geesiyaasha dadka deegaanka iyo kuwa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gudaha u galeen, waxay arkeen godad waaweyn ee halkaasi ka qoteen kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab. sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka qaranka ee gudaha u galay deegaanka Shabeelow kana sheekeeyay sida ay u arkeen goobihii waaweynaa ee gabaadka ka dhiganayeen ragga ugu sarreeya kooxda khawaarijta ee halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale caruurtooda. hase ahaatee dadka deegaanka waxa ay ku wargeliyeen in cudud military oo xoogan ay kusoo wajahan tahay, sidaasi awgeedna ay sii joogi karin deegaanka Shabeelow ayna kasoo wateen xaasaskoodii iyo caruurtoodii, waxayna la aadeen dhanka gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. halka ila madax bannaan ay inoo xaqiijiyeen in ay gaareen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. kooxda khawaarijta ayaa sidoo kale waxa ay baneeyeen 4 deegaan oo hoos yimaada deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug, iyagoona shacabka ku wargeliyay in ay ismaacsalaamiyaan ayna iscafiyaan. taasina ay u muuqato in waayihii joogista kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab ee gobolka Mudug ay soo idlaatay, maadaama geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka ay dhamacda rasaasta uga dhigeen dawada ay ku seexdaan kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa u adkeysan waayay cududda military ee xoogan ee ka socota gobolka Mudug, taasina waxa ay keentay inay isaga soo hayaamaan ayna hoy ka dhigtaan qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. kooxda khawaarijta intii ay ku sugnaayeen deegaanka Shabeelow waxa ay burburiyeen guryaha dadka shacabka ah ay deganaayeen, sidoo kale waxaa isla goobta lagu arkay xaruntii ugu weyneed ay ku daweysan jireen dhaawacyada. sidoo kale waxaa halkan ku sugnaa rag ugu sarreeya kooxda khawaarijta ahna kuwa la doondoonayo oo ka mid yahay Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere iyo wiilkiisa oo haystay kooxda jamhadaha ee halkaasi ku sugnayd. hase ahaatee ay isaga carareen deegaanka Shabeelow iyo 4 deegaan ee hoos yimaada. kooxda khawaarijta muddooyinkii dambeba waxaa ku socday dagaal xoogan oo ay wadaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. hase ahaatee geesiyaasha dadka deegaanka iyo kuwa qaranka waxaa u suurta gashay inay gudaha u galaan deegaanka Shabeelow oo ay muddo doonayeen, maadaama halkaasi ay ahayd fariisin xoogan, dagaal xoogan oo ku dhex maray ciidanka dadka deegaanka iyo kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. taasina ay suurtagali weysay. hase ahaatee hadda ay suurta gashay inay gudaha u galaan geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka Shabeelow oo istiraatiiji u ah dagaalka ka socda dhanka gobolka Mudug, maadaama ay ahayd halka meel oo cududda ugu xoogan ay geeyeen kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab si ay u difaacdaan. hase ahaatee geesiyaasha qaranka iyo kuwa deegaanka waxa ay awoodda saareen
sidii gacanta looga dhigi lahaa deegaankaasi Shabeelow oo deegaan istiraatiiji ah inta badanna howd ku tilmaamaan dadka yaqaana oo maadaama diyaaradda dagaalka aysan halkaasi ka fulin karin duqeymo hase ahaatee diyaaradda iyo kuwa dadka deegaanka iyo ciidanka qarankaba waxa ay sameeyeen u dhabar adeegid xoogan oo ah in halkaasi laga saaro kooxda arxanka daran ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed daadisa. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya ka socday dagaal lagu ciribtirayo kooxdan arxanka daran ee caadeysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyadoona hadda u muuqato maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo wacad ku maray in marnaba aan hurdo aysan ladeynin kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab deegaan iyo dhul Soomaaliyeed aysan ka talinaynin taasina ay suurto galayso oo haatan ay u muuqato in geesiyaashii qaranka iyo kuwa dadka deegaankaba diyaarin xoogan loo sameeyay laguna aruuriyay deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda arxanka daran ee khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. hadda waxaa gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya iyo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe ka socota diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka ciribtirka kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab oo haatan caadeysatay in ay daadiso dhiigga shacabka Soomaaliyeed. hase ahaatee deegaanka Shabeelow waxa ay ka sameeyeen dhacdooyin yaab leh ay ka mid tahay in halkaasi ay ku qaleen 100 ida ah oo ujeedadoodu ay tahay in ay ku sixraan ciidanka geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka. hase ahaatee shacabku ay la wadaageen in goobtan ay ku duugan yihiin ilaa 100 ida ah oo ay ugu tala galeen inay ku sixraan ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanka. hase ahaatee goobtaasi ay ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanku ay ku bilbileen basiin kadibna ay dab qabadsiiyeen. sidoo kaleete waxa ay shacab ku tuseen godad waaweyn oo dhulka hoostooda laga qoday oo ah god lagu soconayo ayna isticmaalayeen kooxda arxanka daran in godkaana uu yahay kuwii ay difaacyada uga jireen. hase ahaatee gabi ahaanba waa la duugay godadkaasi waxaana tuseen geed hoostiisa oo ay ka dhiganayeen goobta ay ku daweeyeen dhaawacyada ay ka soo qaadaan furimaha dagaalka. waxaana halkaasi yaalay dawo aad u fara badan oo isaga carareen kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab. hase ahaatee gabi ahaanba waa la gubay dawadaasi maadaama shaki xoogan oo ka jiray dawo ay uga carareen goob furin ah kooxda arxanka daran ee argagixisada khawaarijta ah. muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dhexe waxaa ka socda u diyaar garowga wajiga labaad ee lagu ciribtirayo kooxda arxanka daran loogana qabsanayo degmooyin iyo deegaano dhaca gobolada Galgaduud iyo sidoo kaleete gobolka Shabeellada Dhexe. inkastoo Shabeellada Dhexeba ka haysan wax degmo ah haatan ay ku sugan yihiin deegaano tuulooyin ah oo hoos yimaada degmooyin dhaca dhanka bari ee soodinta ay wadaagaan gobolka Galgaduud iyo sidoo kaleete gobolka Shabeellada Dhexe. tani markii uu curtay halganka lagu xoreynayo kooxdan arxanka daran waxa ay ciidanka dadka deegaanku sameeyeen horumar fara badan oo ku aadan dhanka furimaha dagaalka ay